السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا مركز جوجتا وان سلامي الشيكة عاوة والشيكة أف عربي أف سومالي بان نوغو ترجمي إن شاء الله ولا لفر بدن بايقول أف سومالي نوغو ترجم والشيكة عجيب أو عبر لغا قاتو عبر يادوين لغا قاتو waxay ku saabsan tahay nabsiga iyo dulmiga inuusan ahayn dulmigu wax sahal ama aha dulmigu waa wax aad iyo aad u xun waa inoo tarjumay marka insha Allah bal shakada ila dhageysta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواني. هذه القصة قصة حقيقية. ninkii ka salaantu ku bilaabay wuxuu yiri sheekadani waa sheeko run ah. يشهد الله ويشهد الله إنها بجنب المسجد وأتكلم بهذه القصة حقيقية. ilaahayna shaahid waa iga yahay anoo sheekadan idinka sheekeynaya inaan masjidka ag joogo iminka waana sheeko run ah. مسؤول من بلدية أبي عريش، مسؤول كبير. wuxuu ka hadlayaa nin mas'uul ah oo ka mas'uul ah xaafad ku taala magaalada Jidda ee Sacuudiga ka mas'uul ah ayuu ka sheekeynayaa. فالبسطة فمر على واحد يبيع تمر. mas'uulkaas wuxuu yimi meel suuq weeye suuqa waxa lagu iibiyaa waxyaalo fara badan waxa kamid ah timirta marka uu soo agmaray suuqii nin miskiin ah oo timirta iibiya oo meesha fadhiya ayuu soo agmaray waa ninkii mas'uulka baa saale markaas wuxuu ku yiri ka kac meesha oo timirtada la kac oo qaad timirta meesha laguma ogole. مر على الجماعة وقال لهم خذوا بضاعتكم من الشارع. nimankii kale ee moogtay meesha fadhiyay iyaga laftooda timirta iibinayeen ama waxyaalihii kale iyaga laftooda wuxuu ku yiri badeecadiina qaata oo kala kac meesha waa nin mas'uul weeyay la hadli kara. ابتعدوا خذوا روحوا كلهم أخذوا إلا صاحب التمر. nimankii oo dhan badeecadoodii way wada qaateen kulligood way qaateen badeecado kala duwan bay wateen meesha way ka carareen laakiin ninkii timirta iibinayay meeshiisii kama dhaqaaqin. جلس فرجع إليه قال meeshiisuu fadhiistay ninkii uu soo noqday mas'uulkii baa macnaha u soo noqday. كيف كلهم أخذوا التمر أخذوا مقاضيهم وأنت ما أخذت مقاضي. wuxuu yiri warheeda nimankii meesha fadhiyay badeecadoodii alaabtoodii dhan way qaateen adii maxaa ku fadhisay meesha. فقال له يا أخويا والله إني مستني أنا هون عندهم سيارة أنا ما عندي سيارة أنا مستني راعي الدباب شيء يجي الحين. wuxuu yiri walaal nimankani gaariyo ayay haystaan oo waa loo yimi laakiin anigu gaarigii baan sugayaa lay keeni lahaa ee alaabta lagula qaadi lahaa gaarina ma haysto. فقال له لا أنت معاند. markaasuu ku yiri yaa may buu yiri run ma sheegaysid anaad igu caanidaysaa buu yiri waa gaadho waad haysataa laakiin mucaanid baa tahay macnaha anigaad igu caanidaysaa anaad igu xumaynaysaa. فركل التمر برجليه. timirtii uu ninkii miskiinka ah iibinayay mas'uulkii muxuu sameeyey timirta gebigeedaba wuu laaday kartoonkii dhan buu laaday. فنثربوا على الرصيف. timirtii waxay ku daadatay dariiqii shaariciisa ugu daadatay. فالرجال لا حول ولا قوة إلا بالله استغش على حقه لكن ما رد له. ninkii miskiinka ahaa ee timirta laga daadiyey wax uu ku hadlu garan waayay wuu iska aamusay. لا حول ولا قوة إلا بالله استغش على حقه لكن ما رد له خلاها في نفسه قال لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ninkii miskiinka ahaa wax kale ma oran wuxuu yiri laa xawla walaa quwwata illaa billah xasbi allah wa ni'mal wakiil wa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wax kale ma oran inta kale buu yiri. الرجال هذا قال له أنا حارجع مرة ثانية إذا لقيت عادك واقف حيحصل لك شيء مو كويس. mas'uulkii keer ma siin ninku wuxuu yiri waan kaa tagay haddaan soo noqdo adiga oo meeshii fadhiya is ilaali wax kugu dhici doonaa waad ogaan doontaa waa u hanjabay. أقرمك حصل لك شيء مو كويس. wuxuu yiri qaraaman kaa qaadaya lacag baa laga qaadaya wax xun baa kugu dhici doona. فمرة فدق برجليه في الرصيف اللي في البلدية دق برجليه في الرصيف. subxaan allah ninkii baladiyaha mas'uulka ahaa markuu ka tegay ninkii uu xoogaa socday sibirka meesha sibirka dariiqii u marayay lugtuu meel ku dhuftay. فوجع شوي قال لا هذا حاجة بسيطة. wuxuu yara dareemay xoogaa xanuuna markaasuu wuxuu yiri waa iska basiid wax dhibaataa ma taas xanuunkaas waxa ma aha. روح البيت يتألم gurigii markuu tagay ninkii mas'uulka ahaa wuxuu dareemay xanuun aan caadi ahayn buu dareemay xanuun cajiib uu dareemay. من هذه الدقة في رجله. فقال له أخويا أرجوك يا أخويا أن تذهب إلى المستشفى أنا تعب. walaalkiiba ku yiri walaal guriga isagoo jooga mas'uulkii walaalkii walaal lugta aad baa laga hayaa maanta meel baan ku dhuftay aad baa laga hayaa si degdeg ah dhakhtarka ii geeya. تاكلني. wuxuu lugtii baa cuncunaysa buu yiri. فراح بالمستشفى مستشفى عام في جدة فكشف عليه فقال wuxuu geeyey dhakhtar ku yaala magaalada Jidda ayuu geeyey si lugtii waa loo baaray. عندك غرغرينة داخل رجلك تاكل رجلك. subxaan allah wuxuu ku yiri cindak qarqariina yani waxa laga helay jidhkaaga waxa ku jira wax la yiraahdo qarqariina wax weeye waa cudur ay bacteria keenta ingiriiska waxa lagu yiraahdaa gangrene waliba gacmaha iyo lugaha bay badan ku dhacdaa wax weeye sababtuna wax weeye dhiigii baan gaarin meeshii loogu talagalay baan gaarin marka uu qurmaysaa meeshii marka wax weeye waa in la jaro dhakhtaradu way jaraa qof gangrene markay marxaladda ugu dambeysay gaadho waa la jaraa. فقال له أخوه
أنا سأذهبك مستشفى الرياض التخصصي. walaalkii wuxuu ku yii wareedhe meeshan inaga daa waxaan ku geenayaa dhakhtarka specialist ah mustashfa riyaad التخصصي. فراح بالمستشفى التخصصي فكشف عليه قال له عندك غرغرينة تاكل رجلك داخل. markuu dhakhtarkii specialistka u tegay waxaa lagu yiri wareedhe gargarina qabtaa lugtaaday cunaysaa. فقصوا له 4 صبابح حقه اللي قدام. marka afartii farood ee lugta afarta farood ugu horeysa ayaa la jaray bal sheekadu si u socotaa waa cajiib weey wallahi subhanallah. قصوها نهائيا لا إله إلا الله. فبعد ما قصوها فعادوا الألم يتعلم. markii la jaray afartii farood haddana mar dambe wuxuu dareemay xanuunkii ku soo noqday isla lugta lafteedii. يزيد الألم عاد يعني wuu sii batay xanuunkii ku leeyahay. رجله. فراح البيت ورجع قال له يا أخويا رجلي عادها تألمني. markuu guriga ku noqday wuu ku yiri walaalkii walaal lugtii weli way xanuunsan maxaan sameeyaa. فرجع إلى الدكتور نفس الدكتور التخصصي. wuxuu ku soo noqday dhakhtarkii specialistka laftiisu ku soo noqday mar dambe. وشوف يكشف عليها قال له لازم نقصها نهائيا. dhakhtarkii markuu arkay buu yiri xal kale ma laha waa in la jaraa lugta waa in la jaraa. نقصها من فوق. من هنا. نعم. waxaad ka jaraysaa lugta ilaa inta ugu dambaysa ama inta ugu sareysa lugta oo dhan la jaro buu yiri kullu hala jaro yani lugta oo dhan wuxuu yiri hala jaro ilaa inta ugu sareysa hala jaro waa lugtii oo dhan wey macnaha. العظيم قصة حقيقية. ninkan waa dhaartay wuxuu yiri wallahi alcadiim qisa xaqiiqiya wallahi waa dhaartay buu yiri waa run sheeko run oo dhacday. فقص رجلين نهائيا. lugtii oo dhan waa la jaray subxaanallah. قصها من فوق. فقال له يا أخويا الله يرضى عليك أنت ظلمت حد. marka ninkii buu weydiiyey ninka lugta laga jaray baa la weydiiyey warheedha walaal buu yiri walaalkii baa weydiiyey wuxuu walaal ma cid baad dulmiday maxaad samaysay waa maxay maxaad samaysay bal xusuuso. فكان تدور على راسه قال له نعم. marka ninkii lugta laga jaray wuu fikiray madaxiisa ugu wareegtay fikradii markii dambe yiri ha waxba xusuustay. صاحب التمر. ninkii timirta lahaa buu yiri walla waa ninkaas. قال له ماذا عملت له على التمر. wuxuu yiri maxaad u samaysay ninka maxaad ku samaysay ninka saaqal ku habaaray macnaha u jeedaa maxaad ku samaysay. قال لي والله العظيم إني آذيته. wuxuu yiri wallahi waan dhaartay buu ninka dhib baan u keenay buu yiri dhib baan u keenay ninka. رحت البسطة قومتهم كلهم راحوا بقوا هو جالس. wuxuu yiri meeshii suuqii lagu iibinayay badeecada ayaan tegey dadkii waa ku qeyliyay dadkoo dhan way tageen isaga bas ka fadhiistay meesha sheekadii ugu sheekiyey. فرجعت إليه فقلت له مالك ما أخذت حقك. waan u soo noqday buu yiri waxaan ku qaadan weyday timirtaada dadkoo dhan way tageen. التمر حقه برجلي. markaas lugtiisiiba timirtiisiiba laad intaan sanduuqii kartoonkii ku jirtay timirtu baan laaday timirtii baan ka daadiyey. وكل التمر حقه برجله. فقال له فقال timirtii waa ka lugtu ku laaday timirtii ninkaa miskiinka u iibinayay. الله يا أخوي اركب ركبوا السيارة برجلة واحدة برجل. subxaan allah markuu shakadaa dhameeyey gaarigii baa la saaray walaalkii baa yiri warkaale kaale gaariga soo kor wuu caawinay miskiin lug dhanba laga gooyey wuu caawinay walaalkii gaarigii buu saaray lug keliya walaalkii baa qaaday ninkii lug keliya la gaarigu saaray. أحد ركب مع السيارة قال له لازم ندور لهذا الإنسان. wuxuu yiri keen gaarigan ku saaraya iminka waa inaynu ninkaa insaanka miskiinka aad dulmiday waa inaynu ninkaa helaa. ندور له. فذهب إلى البسطات وراح سأل عنه. meeshii suuqii buu tegey badeecada lagu iibinayay ninkii buu raadiyey. أبغى فلان. السلام ورحمة الله. salaamu calaykum war ninkaa ma taqaanin. قال له أبغى فلان اللي كان صاحب التمر هنا. waxaan rabaa ninkii miskiinka ahaa ee hebel timirta ku iibin jiray ninka ayaa garanaya. قال له في قرية كذا كذا. wuu u sheegay wuxuu yiri ninka waxaad ka helaysaa tuulada hebla la yiraahdo. فذهب هو أخوه إلى القرية وسألوا عنه. isaga iyo walaalkii baa tegey tuuladii ninkii baa la raadiyey. وقال له على الباب فدق عليه. waa loo sheegay gurigiisii albaabkiisuu garaacay baa ninkii miskiinka aanu ka hadlana baa la raadinaya ee timirta lahaa. قال له السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له تعال. قال له تعرف هذا. قال له نعم هذا أعرفه. wuu salaamay salaamu calaykum salaam kasuu yiri ninkan ma taqaana wuxuu yiri haa ninkan waan aqaanaa. اللي عاد يحارقني في جوفي. قال لي عاد يحارقني. waa garanaya buu yiri ninkaasuna xanuun yani xanuunku ii keenay weli waa xusuusanaya buu yiri. صلى على النبي. قال له أخويا رحت بالمستشفى والآن قطعنا رجليه. wuxuu yiri niyo weedhe walaalkay dhakhtarkan hadda ka nimi lugtii oo dhan baa laga jaray. فالعالم عاد فيه. weli xanuunkii wuu hayaa isagoo lugtii oo dhan laga jaray xanuunkii weli wuu hayaa. فالله يستر عليك إنك تسامح. ilaahay ku asturo buu yiri walaalkay cafi walaalkay saamax arrin weyn baa ku dhacday walaalkay saamax wajiga ilaahay u saamax. فقال يا رب
إني سامحته. الله يسامحك في الدنيا والآخرة، الله يسامحك ويبعد عنك الأذى والشر. markaasuu yidhi yaa rab buu yidhi ninkii miskiinkaa baa duceeyey yaa rab buu yidhi ilaahow shaahidaga noqo ninka waan cafiyey ninka adduun iyo aakhira waan cafiyey ilaahow xanuunka ka qaad subxaan allah. فقسم بالله العظيم إن هذا الرجال فقال فبكى فقال والله العظيم العالم راح. wuu dhaartay wuxuu yidhi wallaahi markii uu ninkaasu duceeyey oo gacmaha kor u taagay oo ilaahay ka ducaystay oo ilaahu ninka xanuunka ka qaad wuu dhaartay wuxuu yidhi isla markiiba ninkii xanuunkii hayay markii lugta la jaray intii sii socotay xanuunkii waa istaagay buu yidhi markiiba. توقف العالم. توقف الآلام wuxuu yidhi xanuunkii waa istaagay. سبحان الله. وأنا أقول يا ناس لا أحد يظلم الناس. subxaan allah wuxuu yidhi dadkow anna waa idinla talinayaa dulmiga iska ilaaliya dulmiga bani aadanka iska ilaaliya. لا أحد يأخذ حق الثاني. dadka xuquuqdooda ayaan la qaadanin dadka xuquuqdooda ayaan la dhicin ninkaa hadda dadku waaninayaa. لا أحد يشيل عرض الثاني. war dhulka war qofka qof dhulka qaado is ilaali dhul yaan la kala qaadan. ولا أحد يقول فلان كذا وفلان كذا وهو بريء. dadkana waxba ha ka sheegin hore hebel waa kaa hebel waxaasuu sameeyey waxaa isagoo beri'a qof beri'a oo miskiina dulmiga laga ilaaliyo. يا ناس اتقوا الله في أنفسكم إن الله يراقبنا جميعا. wuxuu yidhi ilaahay ka cabsada ittaqu llah fi anfusikum ilaahay waa ina arkaa ilaahay allah yaraaqibna jamiican. استغفروا ربكم وتوبوا إليه وصلوا. ilaahay u toobad keena tukada وابتعدوا عن المحرمات. muxaramaadka waxa xaaraantana iska ilaaliya. ابتعدوا عن الدخان وابتعدوا عن الحشيش. ka fogaada sigaarka oo ka fogaada xashiishka waxa drugska daroogada. وابتعدوا عن المسكرات وابتعدوا عن ما حرم الله. wax kasta oo maaragtay sida khamriga oo kale iyo iska ilaaliya iyo waxa moogtahay ilaahay raalli ka ahayn. ربي راقبنا جميعا. ilaahay waa ina ishuu inagu hayaa subxaana wa tacaala waa ina eegaya ilahay subxana wa tacaala. لا تظلم أحد تقول فلان يسوي كذا وكذا وهو مظلوم. weligaa iska ilaaliya maa tudlum axad buu yidhi cidnaha dulmin qof aan waxba samayna oran waxaas sameeya. والله العظيم ربي راقبنا جميعا ما ياخذ إلا ربي حق المسكين. ilaahay waa ina eegaya dhammaanteen ilaahayna qofka miskiinka xaqiisa waa u keenaa. يا جماعة أقسم بالله العلي العظيم هذه القصة حقيقة وأنا عند بيت الله. ninkii markan uu dhaartay wuxuu yidhi ilaahay waa ku dhaartay sheekadan waa sheeko run ah guriga ilaahayna waa hortaagana waana dhaartay. إذا ما أنتم مصدقوني فاسألوا محمد أبو جبل. wuxuu yidhi qof dee dadku u sheegayey u sharaxayey asxaab buu u juubayey wuxuu yidhi haddaydan rumaysanayn u taga ninka la dhaho maxamed abu jabal. في الجامع بالصبا في الجامع الجمعة اللي فاتت. oo jimcihii hore ayuu meesha joogay. ربي يحفظكم ويستر عليكم. والله يوفقك زكي وربي يحفظك ويستر عليك ويفرح الله امك ويفرح اهلك واخواتك ان شاء الله وتتجوز وتحصل لك عيال ان شاء الله تفرح بهم ان شاء الله. الله يوفقك زكي. ninkii waa duceeyey ducuu ku dhameeyey meesha. marka dulmiga ilaahay subxana wa tacaala ayaa xarimay. dulm الطغيان waad maqasheen kelmadda طغيان waxa weeye waa marka uu dulmigu xad dhaaf gaaro weeye طغيان. طاغية كلمة طاغية waa maqasheen مثلا qof loo dhiibay xukum oo مثلا dowlad ka mas-uul ah oo la yiraahdo ninkaas waa طاغية wax kasta isaga qaadanaya wuxuu rabo sameynaya dadku rabo wax siinaya. طاغية طغيان siyaasi xukumka ama siyaasadda ama maaragtay awoodda qofka awood maaragtay haysta dowlad xukuma ma oga inay fitnad tahay. waa fitna kabiira weeye markuu qofku xaakim noqdo waa fitnad weyn weeye. khulafadii ridwaanullah calayhim khulafadiinii khulafaa raashidiin markaad keentid مثلا cumar ibn khataab oo kale cumar ibn khataab iyo abubakr sidiiq ridwaanullah calayhim iyo kuwii kale khulafadii kale way ka biqi jireen inay asulta ama powerka khilaafada la siiyey way ka biqi jireen oo mid kasta habeenkii oo dhan maaragtay wuu xisaabtami jiray ma cid baan dulmay ma cid baan waxaa ku sameeyey habeen iyo maalin laanna way garanayaan waa lagu weydiin doonaa maalinta xisaabta dadka ugu xisaab badan waxaa dadka moogtahay mas-uulka مثلا ama qaadi ha noqdo ama xaakim ha noqdo ama boliis askari ha noqdo mas-uul meel ka ah ama ha noqdo qof adigu uu mas-uul ah xataa waalidka kullukum mas-uul wa kullukum raan can raciyatihi. marka mas-uuliyad weyn weeye aayado far badan oo qur-aanka ah buu ilaahu subxaana wa tacaala ku adkoray dulmiga. axaadiis badan baa jirta oo ku sharaxaysa dulmiga waxaana ugu caan ah حديث قدسي النبي صلى الله عليه وسلم يري وأنا حديث عان أو ليقان يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إلهي بعبادك يسكوله أنا أبا نفتي ذا كحرم الظلم معناها أنا أبا بعدنا الظلمين مركا يدكوا نحن الناس ظلمنا فلا تظالموا. هو حديث عجيب ويه وهذاك ساتولده ضعيف أو فقير
oo dowlado kale waxay ugu deeqeen lacag ama cunto ama wax ay ku caawinaan waxaa laga yaabaa wixii ay dowladdaas siisay in ninka ka mas-uulka ah meesha inuu isaga iyo dadka la shaqeeya ama dadka u dhow ama dadka ahladiisa inuu u kala qaybiyo waana ka dhacday dowlado fara badan oo wax lagu caawimay in ay raggii mas-uuliyiinta ahaa ee loogu talagalay inay waxa u qaybiyeen dadka masaakiinta ee faqiirka ah inay iyagii bilaqaysteen taasuna waa dulm weyn weeye oo marka wixii uu qaadanaya isagu ma oga in ilaahay ishiisu ay aragto ma oga waxa waxaa arkaysaa dad bilaqaysanaya dad masaakiina guryahooda dowlado fara badan bay ka dhacday dad masaakiina dagaal baa dhacaya xarb ahliya dhacaysa waa lisdilaya la isku kacaya dad masaakiin ah oo guryahoodii xoog laga qaadan arkaysa oo waraaqo been la samaystay oo maxkamad loo tago leeyahay guriga anigaas kale qofkii guriga halana waa nool yahay oo 24 saac wuxuu ku wareegaya maxkamada kii guriga qaatayna uu arkaa warqad been sameeyay laakiin ma arko inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala isha ku hayo beero waxaa arkaysa dad laga beelqaystay beero ama xoog laga qaatay waa tuqyaan yani taaqiya xoog nin moogtahay mas-uul ah xoog buu kaga qaadaya waxna ma oran kartid waxa weeye bas maxkamadda adduunka haddii wax ku tarin maxkamadda aakhiro weeye maxkamadda aakhiro ka duwanta maxkamadda adduunka waxyaalo badan baa jira oo la isku dulmo lacag ha noqoto qof lacag xoog kaga qaaday hadda ninka miskiinka ee timirta meesha ku iibinayay ninka waxaa laga yaabaa inuu caruur yaryar fara badan haysto oo uusan meel kale maaragtay macaash uusan meel kale ka helin oo ninka mas-uulka ah awood buu sheegtay xoog buu sheegtay xooggii u sheegtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ninkaas markuu ducaystay waa aragtay wax ku dhacay waa nafsi marka awood buu isku arkaa laakiin ma arko awoodda ilaahay oo ma muuqato waa kayn dhalaya awoodda ilaahay ma arko laanno qalbigu kayn dhalaya laanno qalbigiisa waxba arag subxaana allah soomaalida waxay oran jirtay nafsiga diin baa qaada macnaha waa aad buu gaabanaya diinku maanaa nafsigu waqti dambe ayaa laga yaaba inuu nafsigii dhaco laakiin hadda waxay yidhahdaan nafsigu waqtigan aynu joogno dabeyl baa qaada nafsiga dabeyl baa qaada bal ninkaasu markuu ducaystay isla markiiba subxaana allah ilaahay waa u istijaabay ducadiisii marka dulmiga in la iska ilaaliyo waa muhiim weeye ilaahay ishiisa ayna aragta markaad insha allah videoga daawata la sheergareeya walaalihiin haddaad channelka cusub tahayna channelka nagu soo biir insha allah subscribe ka saaro gambaleelkana taabo si wax kasta cusub kugu soo dhacaan mubaarak allah fiikum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu